بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحين شرحنا عشر كوبات كصابسن veterinary medicine. veterinary medicine عشر كوبات كصابسن veterinary medicine حويهي veterinary medicine history حلي مو كبلامي حلي مو كجوجا وما veterinary medicine. veterinary medicine hadeen af Soomaali ku tirno waa cilmiga barashada xayawaanka. xayawaanka marka la baranayo hada dadka ma aha xayawaanka, cilmiga barashada xayawaanka ayaa waxa la yiraahdaa veterinary medicine. waxa la baranayaa dhammaan wixii baan ku saabsan xayawaan oo dhan, dugaag ha ahaadeen, xoolaha ha ahaadeen xayawaanada badda ku jira, ha ahaadeen waxyaalaha yaryar ee lima qabatiga ah ee aan la arki karaynin. dhammaan barashada xayawaanka marka la baranayo waa la arki doonaa, waxa weeyaan waa la ableeyaa, laakiin veterinary medicine waa barashada xayawaanka weeyaan. markaas waxa weeyaan maanta cashirka koobaad waxaan bilaabaynaa introduction ayaan bilaabaynaa introduction of veterinary medicine. bal veterinary medicine ka ayaan doonaa inaan maanta ka hadalno. haddii cashirka koobaad yahay ee ku saabsan veterinary medicine, veterinary medicine waa maxay? veterinary medicine halka ma ku qeexinaa? veterinary medicine is the branch of science. waa qayb kamid ah science-ka. branch of science waa qayb kamid ah science-ka taas oo ku taxalluqda ama la ugu barto prevention, ka hortagga iyo daaweynta iyo baaritaanka, diagnostic baaritaanka, treatment daaweynta, disorder waxyaalaha baan ku khalaadka ku dhaca xoolo marka ay dhalanayaan iyo marka kale ku yimaada, injury dhaawaca of all animalska dhammaantood baa lagu bartaa. intaas oo dhan baa lagu bartaa marka la baranayo veterinary medicine. waana branch kamid ah branchada ama qayb kamid ah qaybayada uu saynisku u qaybsamo. marka animalka la baranaya wuxuu noqon karaa domesticated ama wild. labada qaybood baa waxa weeyaan waa lagu bartaa. domesticated inaga waxa uu naqaanaa kuwa rabaayada sida xoolaha, geela, ariga, waxyaalahaas oo dhan waa domesticated. waxyaalaha wild-ka ah ee baan ku duur joogta ah ama daab joogta duur joogta labadaba lagu bartaa. specieska ku taxalluqa labadaba lagu bartaa. marka waxa weeyaan veterinary medicine waa ka qeexitaankiisa oo dhameystiran. haddaba aynu eegno history of veterinary medicine. taariikhda veterinary medicine say sheegayaan dadka archaeological evidence-ga ah ama neolithic revolutionist-ka waxyaalaha qorar dhaqdo ama la isticmaalo waxay ahayd intaas oo sanadood nabi ciise ka hor BC ciise ka hor 3000 oo sano ilaa 3000 sano meelahaas ayay nabi ciise ka hor dhashiisa ahayd markii ugu horeysay ee bal xoolo bili aadanku uu xoolo dhaqdo ama rabaaysto. waxyaalihii ugu horeeyay berga focus kala saaray waxa kamid ahaa horseska. waxyaalihii ugu horeeyay wax weyn waa fardu waxay ku jirtaa xayawaanaadkii ugu horeeyay ee la rabaaysto. maxaa yeelay waxay haayeen iyagu economic significant bay berga ku jireen, xataa aan ku jiraan wadamada qaar ama dhulalka inkastoo iminka aan technical ahayn, laakiin si economic significant bay haayeen, muhiimad dhaqaale ayay lahaayeen, especially waliba gaar ahaan farrier waxa weeyaan EQ hoof care horses. niman baa jiray leeyahay farrier oo waxa weeyaan ku taxalluqsanaa inay fardaha u sameeyaan kabo ay ku ordaan markay soconayaan, ama waxa la oran jiray magaca kale loo qaaday horse shows ama doctors baa la oran jiray. marka doctorkaas dee animal doctor uma oran karna markaas ayuu ahaa. waxa weeyaan ragaasi waxay sameyn jireen fardaha ayay u sameyn jireen kabaha qoobabka loo geliyo marka dagaalada la gelayo, marka baan tartanka la gelayo, markasta waxa weeyaan dee u baahan yihiin ma socon karaan. iminka weynka arkay markay laamiyada marayaan waxay gashan yihiin qoobab iyo raacaad bay gashan yihiin ama tartanada ay galayaan. marka waxay ka ilaalinaysaa rifanka yeelisa ka ilaalinaysaa inay ku dhacdo qobanka ka dhacdo faraska.
markaas waxyaalaha xilligaas ay ugu horeysay xilligii taariikhda la sheegay waxa weeyaan fardaha ayaana ugu horeeyay xayawaanada ugu horeeyay meelo kale oo taariikh kale oo ku arkaysa iyagoo ay leeyihiin sheebiska ugu horeeyay qaar kale ay leeyihiin goatiska ugu horeeyay qaar ay leeyihiin dogiska ugu horeeyay marka waxa weeyaan inagu waxaan soo qaadanaynaa waxa ugu horeeyay fardaha laakiin si bili aadamku de kulli hal neef qura ma haysanin faras qura ma haysanin species kale oo xoolo u haystay macnaheedu waaye history of veterinary medicine haddii aynu kusii guda jirno weli aynu kusii jirno ninka lahaa Carlo Reines wuxuu ahaa anatomist of the horse nin ku takhasusay buu ahaa anatomiga fardaha ay ku takhasus buug qoray markaas ninkaasi waxaana la daabacay buugga wax la daabacay 1598 kala la daabacay waa markii ugu horeysay la daabaco ama la qoro book anatomy oo ku saabsan xoolaha ama waxyaalaha loo yaqaan markii ugu horeysay book la qoro aan ahayn marka humanka laga reebo human species marka laga heebo waxa weeye waa book ugu horeysay ee laga qoro waxaan ahayn ka ahayn humanka iyagu wax weeyaan taariikhda fog bay leeyihiin humanka weligood yaalahood waxa weeye buugaag badan lagu qoray waa jirtay xilli kasii fog bay jirtay marka buugu ugu horeysay la qoro waxa 1598 ayaa la qoray wixii bas oo ahaa anatomy of horse ka hadlay waaye historyga weli ku jirnaa iskuulkii ugu horeeyay veterinary lagu barto waxa laga aasay Lyon oo France ku taala 1762 ba laga aasay waxaana aasay ninka la yiraahdo Claude Bongella iskuulka markii la aasayay markii la arkay in ay aad u dabargo'day lo'dii oo xanuunkaas oo ku dhacay laha balaagiyo ayaa la aasay iskuulka meelaha soo in badan xiriyooyin ay ka jireen waddanka Faransiiska oo lo'da iyo waxaas lagu daryeeli jiray markii xanuunkaas aad u dhacay waaye haddaba why is veterinary medicine important muxuu u noqday in muhiimad yeesho veterinary medicine bal su'aashaas ay ka jawaab why is veterinary medicine important muhiimad muxuu u yeesho veterinary medicine muhiimad wuxuu u yeesho veterinary medicine qodobka koobaad human being needs food ili aadamku waxay u baahan yihiin cunto waxay u baahan yihiin fiber so it's important marka wuxuu muhiim u noqday iska ku takhasusay veterinary medicine waxay ka shaqeeyaan farmiska meelaha xoolaha lagu xanaaneeyo ka shaqeeyaan waxay sameeyaan oo wax weeyaan ay ka caawiyaan dadka inay sameeyaan in xoolaha isku talaalaan oo breeding sameeyaan waxay ka caawiyaan diseaseski inay ka hortagaan oo ay daweeyaan nutritionka xooluhu qaadanayeen oo ay adaptiveska sal isku darayo ay ka shaqeeyaan sidaas darteed veterinary-gu wuxuu noqday healthy farmerska oo kala waxa ayaalaha kamid ah ay ka shaqeeyaan waxa weeyaan healthy farmers can produce more milk haddii xoolihii loo hagaajiyo ay veterinarianka u hagaajiyaan dadkii farmiska haystay breedskii oo u hagaajiyaan nutritionkii ay ka ilaaliyaan xanuunadii dadka farmiska haysta waxay soo saarayaan caano hilib beed nadiif ay soo saarayaan oo aynu qudano markaas taasna waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee veterinary-gu uu muhiimad u yeeshay waxa weeyaan veterinarianku waxay ka shaqeeyaan meelaha farmiska ka shaqeeyaan si ay hoos ugu dhigaan dhibaatada gaadhaysa environment-ga ama deegaanka gaadhaysa ay ka shaqeeyaan waxa kale ay ka shaqeeyaan veterinary medicine ama veterinary scientists waxay ka shaqeeyaan inay ilaaliyaan dharkan xidhanayno wax laga sameeyo xoolaha marka waxa weeyaan dharkan qowga xidhanayno wax sameeyo iyaga sameeyo waxa weeyaan warshadaha iyo dadka ka shaqeynaya iyo dadka takhasuska leh waxa weeyaan veterinary hadaanu jirin waxa weeyaan aad looma heleen marka uulka ayaynu ka sameeysanaa xoolaha marka dhogorta xoolaha waxa laga sameeyaa bustayaal waxa laga sameeyaa kooran marka taasna faa'iido ay noolahay waxa weeyaan veterinary medicine waxyaalo kale oo faa'iido ugu leeyahay waxa kamid ah animal labor weeyaan qofkii wuxuu helayaa qof veterinarian oo aqoontina haya xoolina u raaco helaya halku ka heli markuu hore helayay qof aan aqoonta xoolaha waxba ka aqoon laakiin xoolaha un raaci kara imika waxaad helaysaa nin dhakhtar ah oo xoolina ku raaca daweeyana marka laborkuna aad buu kordhay
veterinary-ga waxyaalaha kale ay ka hortagaan waxaa kamid ah cudurrada ku dhaca dadka iyo xoolaha iskaga gudba zoonotic disease baa zoonotic diseaseskaas veterinarianku waa dadka inta badan ka ilaaliya huyumka inay soo gudbaan oo waxa weeyaan waxay ka jeegaranayaan neefkan la qalaya waxa weeyaan ma caafimaad qabaa xanuunaday sii baarayaan daraagiska lagu waday sii baarayaan marka waxa weeyaan health zoonotic diseaseska ama waxa weeyaan sida loo karantiimaynayo waxaas cudurrada jira xoolaha ay dadka usoo gudbiyaan cudurrada ay xooluhu usoo gudbinayaan dadka way fara badan yihiin marka waxa weeye waxa controlaya oo cudurradii garanaya veterinarianka waa garanaya marka veterinarianka muhiimada kale way leeyihiin veterinarianku sida oo kale mid baan ka boodnay slide baan ka boodnay wax daryeelaan oo ay noo ilaaliyaan waxa weeyaan dadka dhaqda bitiska oo la isku dhaho kurikatiska iyo dhookiska la isku dhaho ilaaliyaan oo ilaaliyaan waaye haddaba su-aashan isweydiinayna what veterinarians do veterinarians maxay qabtaan ayaan isweydiinayna veterinarians maxay qabtaan bal haddaynu eegno shaqooyinka ay qabtaan veterinarian marka koobaad waxay baaraan xoolaha dhibaatada hayso neefka markuu xanuunsado waxaa baaraya marka hore ee doonaya la ogaado wabla waxaan haya neefkan waa qof veterinarian oo ku takhasusay xanaanada xoolaha mar labaadka waxay talaalaan cudurrada ka talaalaan xoolaha diseaseska ka talaalaan si aanay cudurkaas ugu dhicin waxyaalaha waxa weeyaan dadka talaalaya xoolaha waa veterinarian marka talaalaan waxa weeyaan cudurray ka hortagayaan treatment of sick animal xoolaha xanuunsaday bay daweeyaan and dressing wounds nabarrada ku dhaca xoolahana way duubaan waxay sameeyaan dadka veterinarianku ama dadka cilmiga u leh barashada xayawaanku inay sameeyaan qaliinada ay ku sameeyaan xoolaha waxa kale ay sameeyaan euthanasia animal when they necessary way suuxiyaan xoolaha mar alla marka loo baahan yahay waxa kale ay sameeyaan waxay daweyn karaan dadka qofku hadduu yahay dhakhtar xoolaad humanna wuu noqon karaa wuu daweyn karaa dadka waaye haddaba halkaa markaynu marayno waxa weeyaan waxaa ku horeysa allied professionals baa aragtay veterinary workers waa maxay veterinary workers waa work in a rural area waxay ka shaqeeyaan meelaha miyiga bay ka shaqeeyaan waxay sameeyaan livestock activity and increase livestock production waxay aada u kobciyaan wax soo saarka xoolaha ay ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan ka beeraha activity-ga ka qayb qaataan qabadyada beeraha iyo xoolaha ka qayb qaataan waxa kaloo ay sameeyaan inay kor u qaadaan wax soo saarka beeraha waxyaalaha kale ay sameynayaan veterinary workersku waxa weeyaan inay ilaaliyaan cuntooyinka soo go-aya localka ay ka ilaaliyaan marka veterinary workersku iyagu waxa weeyaan dad ka shaqeeya uun meelaha rural areaska ah oo aqoon u leh xoolaha iyo managementiga iyo qaab qabaankoodii loo kordhin karo wax soo saarka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha veterinary workers baa lahaa veterinary professionalku waa dhakhaatiirta dhabta ah ee veterinary
veterinary professionalku waxa weeyaan waa physician baa lahaa. Veterinary physician professional care is most often led by veterinary physician. waxaa loo yaqaanaa vet baa loo yaqaanaa ama veterinary surgeon baa loo yaqaanaa ama veterinarian. waa dhakhaatiir iminka waxaad aragtaan human medicine marka human medicine marka laga hadlayo dhakhaatiirta caadiga ee medicine-ka ah halkan waxaa u dhigma professional. veterinary-ga dhakhaatiirta halka human medicine human doctors ku jirta waxaa la yiraahdaa physician baa la physician ama vet baa la ama veterinary surgeon ama veterinarians baa la waa dhakhaatiirta dhabka ah ee takhasuska ku leh veterinary medicine ku takhasusay ee la professional. para veterinary baa jira. para veterinary waa nurseska ayaa kamid ah. waxaa kamid ah technicianka iyagoo wax weeyaan xirfada xoolaha yaqaanaba kamid ah. waxyaalaha qaarkood waa marmar waxay sameyn karaan jida yaryar inay neefka maasha ka jeexaan inay holholka kasoo guraan waxyaalahaas oo dhan bay ka qayb qaataan. marka waa para veterinary baa la dhahdaa. different types of jobs bal shaqooyinka veterinary baynu eegaynaa qayb ay u qaybsamaan halkan u eegaynaa. veterinarianku ilmisa qaybood bay ka shaqeyn karaan imisa meelood bay ka shaqeyn karaan qofka veterinary medicine jaamacad ka baxay baynu eegaynaa. veterinary clinics buu ka shaqeyn karaa. hospital veterinary hospital buu ka shaqeyn karaa. government agency buu ka shaqeyn karaa sida military oo kale. wuxuu ka shaqeyn karaa educational institutes collegeada ka shaqeyn karaa shaqo ka heli karaa. wildlife management groups oo duurjoogta inuu bankuuri control ayuu ka heli karaa. zoonosiska ayuu ka heli karaa shaqo. kuwa maarimka ranchiska waxa weeyaan meel aad u weyn ay inta badan waxa weeyaan lo'da iyo waxa lagu xanaaneeyo ka shaqeeyo. farmsku ka shaqeyn karaa. waa different types of veterinary waxa weeye intaasoo type ayaa jobs ka heli karaa oo veterinary ah. pharmaceutical companies ku ka shaqeyn kara dawooyinka xoolaha soo saara oo kale ka shaqeyn karaan. marka waa field aad u ballaaran. dadku waxay inta badan isweydiiyaan shaqan weyn haddana veterinary medicine barano. veterinary medicine ku waxa weeyaan faculty aad u ballaaran waalina waa faculty naadira waxa weeyaan hodita benefits xaga dambe kaga hadli doonaaye aan dadka bartay ay aad u yihiin. veterinarianku hadda waxay qaybsamaan. veterinarians types bay leeyihiin. waxaa kamid ah veterinarianka qayb ku takhasusta ama barata wax la yiraahdo companion animal. companion animal ku ah vets who are treat diseases and abnormal conditions cats and dogs. waxay ku takhasusaan khaya veterinariankaasi companion animal veterinarian baa la waxay ku takhasusaan qura daaweynta xanuunada ku dhaca bisadaha iyo eeyda. waxaa jira qaar veterinary practitioner. veterinary practitioner waxa weeyaan who have advanced training bay haystaan. training aad u sareeya aan expertise bay weeyaan bankuuri khubaro waxyaalaha ay ku takhasusaan ee khabiirada ku yihiin waxaa kamid ah afinian practice-ka dhaqashada shimbiraha. waxa ay kamid yihiin caninka feline practice-ka oo iyaguna aad bankuuri wadamada reer Europe iyo wadamada gaaladu ay aad u isticmaalaan oo ay u tixgeliyaan. EQ kamid ah oo fardaha iyo hooyan qaybahaas ay ka shaqeeyaan. waxay ka shaqeeyaan reptileska iyo xamaaratooyinka iyo waxyaalaha masaska iyo waxaas diimanka qaar ka shaqeeya jira oo ku takhasusay jira veterinarianka. exotic companion animalska qaar ku takhasusay jira waxyaalaha exotic ah. marka waxa weeyaan iyagu laba qaybaha. food animal veterinarian baa jira iyagu maxay ku takhasusaan kuwan waa cuntada ku takhasusaan. food animal veterinarians are responsible for care of animal and raise for food production and human consumption. waxay ku takhasusaan quraas sida loo xanaaneeyo xoolaha loogu talagalay cunto in laga helo oo dadku quuto. they provide medical care consistent of research diagnostic and prevention. intaasna way sameeyaan inay xanuunadii baaraan inay sameeyaan baxthi iyo inay ka hortagaan. waaye food animal veterinarian waxay qabtaan daba provide health care for livestock and possible laboratory animal. waxyaalaha ay qabtaan waxaa kamid ah inay siiyaan caafimaad dhammaystiran xoolaha inay siiyaan wax allaala wixii xanuunaha laboratory-ga ku taxalluqana ay qabtaan. waxyaalaha ay qabtaan waxaa kamid ah inay examine animal to determine nature of illness or injury and treatment. meesha inay examine gareeyaan ama ay baaraan meesha neefkan xanuunaysa ama dhaawac kaga yaalo dabeetana ay daweeyaan.
inay monitor inay maamulaan animal performance and provide regular feedback for emergency management reports, inay report joogta ah bixiyaan oo ku saabsan waankoori waxtarka iyo soo wax usoo saari lahaa neefku iyaga oo la soconay xaaladiisa. waxyaalaha kale ay bixiyaan waxaa kamid ah food animal veterinarian waxaa kamid ah inay management ka qayb qaataan security-ga iyo ka hortagga xanuunada, daweynta iyo wax allaala wixii regulatory food safety requirement ee loo baahan yahay ee waxaha cuntadu ay u baahan yihiin inay report siiyaan. higher research new diseases baa kamid ah food inay cudurro cusub inay baaraan baa kamid ah iyo wax weeyaan medicine-keeda procedure-keeda soo dejiyaan. test vaccine inay vaccine taskareeyaan baa kamid ah oo xoolo ku taskareeyaan preventive control contagious disease animal cudurrada dilaaga aad ka gudban ee baankooriyo ku controlaan oo ka qayb qaadan karaan. responsible waxay ka yihiin kale mas'uul ka yihiin inay hubiyaan baankoori nadaafadda meesha ka jirta iyo qalabka la isticmaalayo oo meesha lagu isticmaalayo. waxa kale kamid ah inay hubiyaan oo ay iyaguna la socdaan baankoori xoolaha caafimaadkooda. waxyaalaha kale kamid ka ah qaban karaan food animal and veterinarian waxa kamid ah inay documentiya diyaariyaan documenti qoran ay baankoori ka sameeyaan neef kasta xanuun oo xanuunsaday treated la daweeyay inay dawadiisa ay ka reebaan oo ay liisa dadka oo kale ka sameeyaan ayaguna oo shaqadaas qaban karaan oo ay waxay ku takhasuseen nimankan oo farsin staff and office business virus waxa weeyaan way maamuli karaan ganacsiga dhamaantood iyo shaqaalaha iyo waxaas. food safety inspection veterinarian baa jira qayb leeyahay food safety inspection kuwaas maxay qabtaan daba veterinarians waxa weeyaan kuwaasi wasaamka waxa weeyaan America oo kale ama World Food Supply oo kale waxay sameeyaan food dinner table kay sameeyaan kuwaasna waa qaar ay iyaguna jiraan. research baa jira research veterinarian baa jira research veterinarian waxa weeyaan waxay sameeyaan study bay sameeyaan ama baxthi bay sameeyaan ku saabsan inta badan veterinary medicine-ka ama clinical research-iska ay sameeyaan waana qolada inta badan soo gudbisay baankoori baxsiyada qolada physician-ka veterinary doctors ka mid ka ah waxay ka qayb qaataan oo ay daabacaan waxa la waxyaalaha la daabacay ee ku saabsan veterinary industry-ka ama scientific ku saabsan. waxa kale ay sameeyaan research bay sameeyaan ku saabsan baankoori dadka iyo xoolaha labadaba problemka ay ku keeni karaan sida cudurrada West Nile viruseska mad cow diseaseska cudurradaas oo dhan ka hortagaan. veterinary special area specialka waxyaalaha lagu takhasus karo veterinarian waxa kamid ah marka qofku dhameeyo bachelor degree master buu geli karaa waxyaalaha uu takhasus ku diyaarin karo waxa kamid ah area-yinka ama qaybaha uu geli karo waxa kamid ah anesthesia inuu ku takhasuso qolaas ku suuxinta animal welfare-ka inuu ku takhasuso behavior-ka inuu ku takhasuso inuu ku takhasuso qaybta iyadana ilkaha inuu ku takhasuso baankoori dermatology-ga khaliya inuu preventive medicine khaliya ku takhasuso inuu radiology ku takhasuso inuu toxicology ku takhasuso inuu pharmacology-ga baankoori oo qora veterinary ku takhasuso microbiology-ga laboratory-ga sports medicine-ka oo wax weeyaan qoladii baankoori oo fardaha iyo waxaas inta badan exercise-ka iyo waxa uu sameeynayay iyo disability-ga marka jabaan iyo baankoori sports-ka lagu ciyaaraha iyo tartamada intaas oo dhan kamid ah. way veterinarian significant benefits-yada ay leedahay veterinarian maxay benefit leeyahay veterinarian-ka benefits-yada waxa kamid ah monitor and control of zoonotic disease. veterinarian-ka benefits-kooda waxa kamid ah inay controlaan xanuunada la isku gudbiyo lana socdaan baankoori ka warhayntooda. waxa kamid ah inay food safety ka shaqeeyaan cuntada caafimaadkeeda iyo public health labadaba. waxa kamid ah kale veterinarian faa'iidooyinka veterinary in medical research ay sameeyaan waxa weeyaan ay soo taskareeyaan xanuunadii ama xoolo ku soo taskareeyaan tan markiiba human lagu taskareeyaan. waxa kamid ah waxyaalaha faa'iidooyinka veterinary oo qabto waxa kamid ah food supply livestock in xoolaha ay siiyaan cunto nadiif oo fiican oo aan. waxyaalaha kamid ah kala waxa weeyaan animal treatment and livestock health monitor-ka kamid ah. epidemiologist baa kamid ah welfare of animal doctors can be become human doctors oo faa'iidooyinka veterinary ninka veterinarian-ka human doctor uu noqon kara waa laga soo sheegnay. most of the veterinarians get into independent jobs inta badan veterinarian waxyaalaha faa'iidooyin shaqo u madax banaan bay helayaan la qabsanayaan qofka doona farm buska furanaya waxa weeyaan
veterinarianku are very rare compared to human. Wani sheegay fursadooda aad u yarta marka human doctors la barbar dhigo human veterinary doctors waxa weeyaan waa chance dadku inta badan ma bartaan san human oo kale liiskama buuxiyo faculty aan la aqoon. Competitiveness farm community prefer tools to keep animal healthy production. waxyaalaha ay ka qayb qaataan waxay waxtarka baankooda beeraha ee community-ga siiyaan dhammaan qalabka u baahan yihiin si ay xoolaha caafimaadkooda uga hortagaan ay sameeyaan competitiveness waxa la dhahaa. halkaas aan ku joojinaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. please waxa weeyaan channelkan YouTube-ka subscribe gareeya. waxa weeyaan si markasta aan soo geliyo video si automatically idinku soo dhaco.